seminaarkan ayaa waxaa ka qayb qaadanayay haweenka ku nool degmada Warshiikh odayaasha dhalinyarada waxaana si weyn looga dooday sida looga hortagi karo caqabadaha gabdhaha da'da yar iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan guurka. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maaliyadda ee degmada Warshiikh Xasan Mataan ayaa soo dhaweeyay seminaarada noocan oo kale ee lagu wacyigelinayo bulshada ku nool degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe. marka ka maamul ahaan waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa waxaan leenahay sawja iyo hay'adaha la shaqeeyaba ku soo dhawaada degmadan degmadiina waay dadkana waa dad u baahan baraarujin iyo wacyigelin ay ahaday dhinac walba waana muhiim in xilligan ay ku soo beegantay in barnaamijka laga hadlo. gudoomiyaha ururka u dooda xuquuqda gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed Leyla Cadceed Cismaan ayaa ka hadashay dhibaatooyinka ay kala kulmaan gabdhaha guursada iyagoo aan gaarin da'da guurka iyo sida looga hortagi karo. gabar uur qaatay iyadoo 12 jir ah sidee u noqon kartaa hooyo sidee caruurkeeda u xafidi kartaa sidee maxay ahayd caafimaadkeeda ayuu noqon karaa ma dhali kartaa unigaas ma qaadi kartaa miskeeda diyaar ma u yihiin waxyaabahaas waa sidoo kale waxaan ka hadlaynaa oo kale gabdhaha ayaguna sidoo kale ilaa 14 ilaa 18 wixii ka hooseeya ah ee ayaguna uurka qaada dhibaatooyinka soo wajahay in badan oo la soconaa maleynaya waxaa dhibaatooyin fara badan ka dhasha gabdhaha aad ku da'yar ee aan awoodin waqtiga guurka waxaana maalmahan socda dadaalo lagu joojinayo arintan oo ay wadaan ururada u dooda xuquuqda gabdhaha iyo maamulka degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.